بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أخوتي في العقيدة، waxaan mawduuca walaalkay tilmaamay ayaan ka hadli doonaa haddii alla yidhaahdo subxaanahu wa tacaala wixii alla inaga garadsiiyo. ilaahi subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa dunida tan in laynoo keenay in layna itixaamo. insaankuna noloshiisu nooc kastoo ay tahayba, walaqad khalaqna alinsaana fii kabad, beer xanuun baan ku dhex abuuray baa layidhi subxaanahu wa tacaala. waxaa laynoo tilmaamayaa insaanku mar kastaba horta inuu kaadixiyey nolosha tan in loogu talagalay in lagu daalo. yaa ayuha alinsaanu innaka kaadixun ilaa rabbika kadxan famulaaqii, war waa daalaysaan baa la yidhi subxaanahu wa tacaala, xagga alle u daala. casrigan aynu joogno innaguna wuxuu sii noqday cusuurtii fitanka badnaa ama dhibtu ay tiro badan tahay. ilaahi subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamay maadaama aynu mu'miniin nahay in layna itixaami doono. imtixaanka qofka mu'minkaa laga qaadayaana jawaabtuu bixiyana inay tahay waxa aakhiro wax lagu siinayo. sidaa awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanna wahum laa yuftanuun walaqad fatanna aladiina min qablihim falayaclamana allahu aladiina sadaquu walayaclamana alkaadibiin. alle subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahy dadku ma waxay u malaynayaan inta ay yidhaahdaan aamanna inaanu sidaa ku dayn doonno oo aan la itixaami doonin. ilaahay wuxuu tilmaamayaa in la fitnayn doono. fatana, kelimatu lfitna, waxaa asalkeeda la tilmaamaa inay tahay marka la dhalaalanayo dahabkee la kala shiilayo, dahabka iyo khashinka la socdee kale si loo kala saaro waa la dhalaaliyaa, dabeetana dabkaasaa kala saara intiisa fiican iyo intiisa xun. waxaa alla inoo tilmaamayaa in dadka mu'miniinta imtixaanaad ay ku iman doonaan. imtixaankaasi inuu noqon doono ku basharka lagu kala dhalaalinayo oo lagu kala saarayo. ilaahay markaa wuxuu leeyay falayaclamana allahu aladiina sadaquu. ilaahay subxaanahu wa tacaala waa muujin doonaa oo waa si cad baa alla u soo saari doonaa kuwa runta sheegaya ee cahdiga ilaahay la galeen iyo laa ilaaha illa allah muxamadun rasuulullah ka run sheegaya, iyo kuwa beenta ah baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala iyo beenta sheegaya. waayo ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa basharka inay ka mid yihiin qaar haddii uu nimcada helana ilaahay caabuda, haddii laysitixaamana yidhaahdo dabaday bannaanka ka baxa waxoo dhan. ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa wa min annaasi man yaquulu aamanna, waxaa la leeyay wa min annaasi man yaquulu aamanna biاllah faidaa uudiya fi llahi jacala fitnata annaasi kacadaab illah. dadka waxaa ka mida baa ilaahay yidhi kule aamanna biاllaah, laakiin haddii loo itixaamo buu ilaahay leeyay subxaanahu wa tacaala, ilaahay dartii haddii loo itixaamo oo dhibi qabsato wuxuu ka dhigayaa fitnada iyo imtixaankan dadka sida ilaahay cadaabkiisa looga boqoo kale. idan waa laabmaya namuudajka kan ama kooxda tan halaca iyo warwarku uu haysto
waxa ilaahay quraanku tilmaamayo wa min an-naasi man ya'budu allaha ala harf fa in asabahu khayrun itma'anna bih wa in asabathu fitna inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah dadka waxa kamida ba ilaahay yiri kuwa ilaahay dacal ka caabudaya oo hadii wanaaga la helana macna soo khayrkaasi wadaya hadii dib iyo imtixaan u yimaadiyo mushkiladina dib u laabmaya ba ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala idan imtixaanaadku way imanayaan mar kastaba dunida imtixaanku waa imanaya waxaana alla imtixaama dadka kuwa ugu jecla anbiyadii iyo rusushii ay imtixaanaadka ugu waaweyn ku dhacaan imtixaanka danta laga leeyana waxa weeyaan in la kala saaro as-saadiqiin wal kaadibiin as-saadiqiin fi iimaanihim kuwa iimaankooda ku run sheegaya iyo kuwa ka been sheegaya in la kala saaro idan dadku imtixaan bay ku jiraan fitan kaasi iyo imtixaankaasi fitan tugaad iyo jabaabira ka yimaada niman kibray oo qooqay oo dadka dhiba oo mashaakil u geysta fitan ka yimaada shahwaati nafs iyo shubahaat iyo wixii la nooca fitanku way tira badan yihiin insaanku inta badan hadduu dhergo oo uu baahi beelo oo uu xoog isku arko oo uu arko dadka inta kale inay ka liitaan oo ka jilicsan yihiin xaqa wuu ilaabaa ilaahay baa qur-aanka wuxuu leeyahy kallaa ina alinsaana layadgaa an ra'aahu istagna ina ilaa rabbika rujca ara'ayta aladii yanhaa cabdan idaa salla ara'ayta in kaana cala alhudaa aw amara biاtaqwa alle wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala basharku hadduu deeqtoomo kaaftoomo waa qooqaa waa kibraabaa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala kibirkaasi wuxuu gaadhsiiyaa mid tukanaya inuu yidhaha war maxaad salaadda u tukanaysaa inay salaadu dembi noqoto qof lagu qabsado ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u tilmaamaya isagoo qofka salaada tukaday aanu wax kala samayn meeshiisii ugu fiicnayd umu dhulka dhigay khalaas cidna waxuma geysanin haddana ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala inay salaadu dembiba u arki doonaan ara'ayta aladii yanhaa cabdan idaa salla waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aan ku tilmaamaya mu'miniintu hadday daciifaan kayfa wan yadharuu calaykum laa yarqubuu fiikum ila walaa dimma hadday idinka xoog bataan maxaa dhici doona baa ilaahay leeyahy ballan iyo cahdi toona idiin inalin maayaan ilaahay baa wuxuu leeyahy laa yarqubuuna fii mu'minin ila walaa dimma mu'minka xaggiisa ballanna ilaalin maayaan qaraabo iyo tollimana ilaalin maayaan yacni xeer la dhigtay oo horoo basharka ka dhaxeeyey iyo heshiisyo yaallay ma ixtiraamayaan baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala waxaa kaloo ilaahay leeyahay sokeeyanimo iyo qaraabanimo iyo bini aadamnimo iyo mid kalena kuwa eegi maayaan idan markay tani timaado insaanku uu xadka kan gaadho wuxuu gaadhaa xad uu aada u qooqo basharka kalena uu ku dhib mutaan fitnadaas iyo imtixaankaas waa imtixaan bini aadamku uu soo maray ma aha mid taariikhda ku cusub bale markay saxaabadii nebiga mashaakilkan ay qabsaday ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aan buu ugu tilmaamay mas'aladatan waxa ilaahay uu ka warramaya waxay maanta u yaqaaneen alfikra asaadiya alfikra asaadiya fikra saadiga waxay ku sheegaan waxay dhahdaan waa ideologiga ah qofka bini aadamka ah inaanu qofka kale u ciqaabin inuu dembi galay oo qura ee mararka qaarkood inuu u ciqaabo bay yidhaahdaan inuu ku raaxaysto tacdiib ulbashar inay noqoto litafakur wax lagu raaxaysto qof la cadaabayo laakiin ay jiraan dad daawanaya oo mujtamac isugu soo urura in la daawado dad in la cadaabo taariikhda bini aadamka hore u soo martay maaha mid bilowa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya qutila asxaabu اlukhdud النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وحالا نعذلي أما إلهي سبحانه وتعالى نحرستي سلقفوقي كوي قدتك تشيح ذيبا إلهي سبحانه وتعالى كوي قدتك سميي قدتك محال قبني قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود ضب الشدين وكي حديثك النبي صلوات الله وسلامه عليه تلمامي حديثك غلامك
wuxuu nabigu sheegay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh boqorradii ka horreeyey muslimiinta boqor ka midi inuu lahaa nin wadaada oo kaahina oo u faaliya faalihiisii uu gaboobay markii dambe uu ku yidhi faaliyihii war inan yaroo aqoon-yahana ii keeno aan faalka kuu baro oo inaan dhimanayaabay u muuqata inan yar la keenay inankii yaraa uu faalka la bari jiray dabeetana waddada uu sii mara unbuu nin wadaadoo raahibo ka helay kiina waxoogaa buu ka dhegaystay kadib ilaahay subxaana wa tacaala raahibka wixii uu u sheegay baa alla ku anfacay maalintii dambea daabadi istaagtay waddadii dadku uu marayey wiilkii yaraa dhagaxintuu qaatay ayuu yidhi maantana arrinkii wadaadka iyo raahibka iyo sixiroolaa kala saaraya dabeetana ilaahay magaciisa intuu u qabsaday buu ku tuuray isagoo le ilaahay hadduu arrinka raahibku xaq yahay ninkaasi bahalkaasi dadka dhibay dhagaxa kan ku dil dhagax buu ku dilay xadiidku waa xadiidka dheer ee sheegayey boqor nin agtiisa fadhiyay inuu indhabeelay yani maxalu istishaadku maan xadiidka ka tilmaami doonaa nin agtiisa joogay inuu indhabeelay dabeetana uu maqlay wiil yaroo dadka u duceeyo oo ilaahay ku caafiyaa jira soo raadceeyey wiilkiiyo u yimi markuu u yimi ayuu wuxuu ku yidhi hadiyadan badanna waan kuu sidaa waxaanan rabaa inaad caafimaad siiso wiilkii wuxuu ku yidhi hadiyadaadana hayso aniguna wax ma caafimaadiya ilaahay baa wax caafimaadiya haddaad doonayso ilaahay rumee anna waan kuu barya alle subxaana wa tacaala alla ha ku caafiye ninkii ilaahay buu rumeeyey wiilkiina alla uu bariyey dabeetana indhihii baa u dilaacay waxbuu arkay wuxuu ku noqday xaashiyadii de boqorku ahaa ee boqorka agtiisii markuu yimi waxau yidhi war indha ayaa kuu saaray adigaan wax arkaynini wuxuu yidhi rabbigay awalaka rabbun hayri buu yidhi oo ma midaan aniga ahaynoo rabbi aad rumaysantay baa jira caqliga bini aadamku markuu kibirku ka bato insaanka caqliga caadiga uu ka lumaa markuu caqliga caadiga lumana waxaa soo baxa qawaaniin afkaar aragtiyo aan xataa fitrada caadiga insaanka waafaqsanayn sida awgeed buu wuxuu ku leeyahay ninkan isagoo og inaanu isba rabbi u ahayn ayuu haddana wuxuu leeyahay walaka rabbun hayri ma midaan aniga ahaynoo rabbiya baad leedahay wuxuu yidhi aniga rabbiga iyo adiga rabbigaaba waa alle subxaana wa tacaala ba inoo wada rabbiya waa la toorjargareeyey ninkii ciddii waxaan kugu tidhi keen wiilkii baa la keenay waa la toorjargareeyey ciddii keen wadaadkii raahibkaah baa la keenay wixiiba waa la toorjargareeyey waxaa la yidhi wadaadkii ma ka noqonaysaa diintanaad haysato may buu ku yidhi madaxaa mishaar laga saaray labaa loo kala gooyey qof nooloo la mishaarinayo qiyaas ilaa intay naftu ka baxayso waxaa la keenay ninkii indhoolaha ahaa waxaa la yidhi ma ka noqonaysaa may buu yidhi waa la mishaariyo labaa loo kala gooyey wiilkii yaraa waxaa la yidhi ma ka noqonaysaa may buu yidhi yacni duqaadu dadka qooqa waxaanay weli fahmin caqiidadu waxay tahy caqaa'iddu waa shay qalbiga gala xoogguna ma baabi'iyo qofka bini aadamkaa jidhkiisa waad tumi kartaa waad dili kartaa waad garaaci kartaa laakiin qalbigiisa ma hanatid waxa gelaya caqaa'iddu waa wax qalbiga gala saa daraaddeed qofka haddii la torjargareeyo haddii la dilaba waana la dili karaa waana la torjargarayn karaa laakiin qalbigiisa lama bedelo wuxuu ku yidhi ma ka noqonaysaa may buu yidhi qoluu ku daray waxaa la yidhi buurta geeyo ka soo tuura buurtii markii la geeyey ilaahay buu baryey wuxuu yidhi ilaahu kuwa sharkooda iga kaafi buurtii waa gelgelatay intii kale ka daadatay isna wuu soo noqday isagoo soconaya war miyaad wixii ka noqon kama noqon mucjisaadka iyo waxaan dhacaya dadku markay kibraan ma arkaan wax kale unbay ku sababeeyaan uma muuqanin ninkan ciidankii dhammaaya lagu daray inaan la halaago isagu uu soo noqday laakiin waxaa u muuqato inuu isaga ka takhalluso war doon saara buu yidhi doon baa la saaray badda kusoo rida buu yidhi baddii baa la geeyey ilaahay buu baryey ilaahu kuwan iga kaafi sharkooda buu yidhi waa qallibantay kuwii baa dhintay isagiina waa ka soo badbaaday wiilkii yaraa waa kii akhiiran la weydiiyey yidhi war ma rabtaa inaad idisho sidan aad ku waddo kuma dhimanaye farsamaan kuu sheegayaa kale aniga kanaanadayda tan ama jucbadaanan wax ku sito kala bax warankayga ama leebabka bismi illaah rabbi lghulaam dheh magaca alle iyo rabbiga ghulaamka ayaan kuu cuskaday dheh markaas buu mudayaa buu yihi bahalka kani laakiin dadkao dhan isugu yeedho caynkaa dheh
wiilkani wuxuu rabay inuu isagu dhinto ilaahay dartii uu dhinto laakiin dadku iimaan inuu galo waa la isugu yeedhay sidii baa la sameeyey waxa dhacay markaa wiilkii halkiiba bahalkii kaga dhacay uu dhintay dadkii markay arkeen wiilkii inuu si kale ku dhiman waayey sida tan mooyaane waxay idhahdeen aamanaa birabbi alghulaam rabbiga wiilkan baanu anana rumaynay bay idhaahdeen godad u qoda buu yidhi marka godad baa loo qoday godadka markii loo qoday ee dadka lagu gurayey muu odhan inuun dadka inta godad u qodaan laaya laakiin waxaa la yidhi dadka godad u qoda oo dab ku shida oo ha lagu gubo ciddii ka noqon weyda oo weliba audience ha yeeshaanoo ha la daawado waayo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa id hum calayha qucuud inay dileenoo qura lama tilmaamin fikra saadiya buu qur-aanku tilmaamaya dadkani may ahayn dad wax laynayay oo qura boqorkani wixii kasoo horjeedo qura ma dilin ee wuxuu yihi toorjar gareeya toorjarkana ha la sawiro dee sawir kale waagaa ma jirin wax lagu sawiriyo kamarad lagu qaado iyo wax kale ma jirin sawirka qura la samayn karaya waxaa in audience loo sameeyo in dad daawado la keeno oo u daawado boqorkii iyo wixiiba waa daawadeen ayaa ilaahay leeyay markay gubayeen dadka kale waxaan u soconnaa waxa weeyaan almuslim amaama alfitani waalimtixaanaat maa mawqifu xagguu istaagayaa qofka muslimka ahi marka dhibta tan iyo imtixaanaadkani qabsadaan dadkaasi muslimiinta qur-aanku wuxuu inoo sawirayaa inay ku sabreen dhan kale waxaa la inoo sawirayaa subxaana wa tacaala in uu isna arkaya ilaahay waayo dadku waxay isweydiin karaan war markan mu'miniinta sidan loo galayo sidii yar inta la tumo haddana xadhigga lagu jiidayo waa nooc min torturki waa fikra saadiya qof inta la tumo haddana la sawirayo waa fikra saadiya kullu dalik waa qof bini aadam oo la torjar garaynayo la tumayo lana rabo in lagu taladudo oo la daawado la macaansado how he is dying sida uu dhimanayo ama sida uu xanuunsanayo ama sida uu cabanayo in la arko bale in lagu taladudo la macaansado ilaahay xaqu ku maqayay subxaana wa tacaala miyaanay mu'miniin hayn ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala id hum calayha qucuud wahum calaa maa yafcaluuna bilmu'miniina shuhuud ilaahayna waa arkayay wixii mu'minka lagu samaynayay baa la yidhi subxaana wa tacaala licajalati axad alla uma degdego ilaahay maalin buu ballan qaaday oo abaalmarka bixinayo tan waa isku keeni taxaamayaabaa ilahay yidhi waxaa alla subxaana wa tacaala ku tilmaamayaa dunidan aad joogtaan waa la isku keeni taxaamaya oo waxaa la isugu keeni taxaamaya wajacalnaa bacdakum libacdin fitnatan atasbiruun baa ilahay yidhi wajacalnaa bacdakum libacdin fitna kooxba kooxdiin baan bal ku itixaamayaabaa ilaahay yidhi waa isku kiina eegayaa kuwiina mu'miniintaa waxaan eegayaabaa ilaahay yidhi atasbiruun marka laydin itixaamo bal inaad sabirtaan walidaalika iyadoo mu'minka la gubayo oo god lagu gurayay oo dab loo shitay ayaa ilaahayna wuxuu qur-aanku tilmaamayaa wallahu waxa ay samaynayaan ilaahayna shahiidi id hum calayha qucuud wahum calaa maa yafcaluuna bilmu'miniina shuhuud waxa ay mu'miniinta ku samaynayaan way u soo xaadireenoo way daawanayeen ilaahayna subxaana wa tacaala suuradda kuma sheegin wax ciqaabayo wax baloo lagu soo dejiyey dee wax walbana waa arkaya laakiin wuxuunbuu alla sifeeyey iyagu noocay ahaayeen oo ah inay dad dab ku guraya ahaayeen inay meesha fadhiyeen wahum calaa maa yafcaluuna bilmu'miniina shuhuud waxay mu'miniinta ku samaynayeenna weliba ay daawanayeen oo aanay ahayn yacni dad gaarun waxay sameeyeen oo aanay ogeyne iyaga laftooduna ay daawanayeen ilaahayna waa arkaya subxaana wa tacaala bale qur-aanku waxaabuu tilmaamayaa in jaanis toobad kalena loo sii furay ayaa alla subxaana wa tacaala tilmaamaya in kuwa fitnada ku sameeyey mu'miniinta uma lam yatuubuu baa ilahay yidhi yani kaana waxaa alla sii tilmaamaya weliba inay jaanis kale leeyihin xadiidkii nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu sheegayay dadka sidii dabka loogu gurayey yaa lagu gurayaa dumar caruur nin weyn nin yar all classes mujtamac oo dhan looma kala aaba yeelaynin dhammaantood waa la gubayey dhammaantood waa la tumayey ayaa islaaniisa soo taagtay ilmo yar sidataa taqaacus yaro samayso dabkii iska yaro giijisay
إلهي كي رايا يسدتي بك هدلي سبحانه وتعالى يوحي يا أمة اصبري فإنك على الحق هوي صبر بويد حق بات كتاغنتي سؤال سويدين تلمركا waxay tahay موقفك مؤمنك امام الامتحانات وامحي موقفك مؤمنك امام الامتحانات ووردتن الهي ويلك يرك هدلسيه يا امه اصبري هوي صبر فإنك على الحق حوليك صبر ضبك قلب قالوا قبب لكن حق بعض هيستاي حق يكالمه maxaa dadka loo gubaa ama loo dhibaa ama waxaan loogu sameeynayaa yani waxa laga rabaa waxyaaba qaarkood aydan inaad isticjaal samayso degdegto waxaan loo fadhiyay inaad samayso lagu sii barnaysto ama inaad tanaasusho wixii aad haysatay aad ka tagtid ama in lagu quusiyo qunut kugu dhaco oo aad tiraahdo waxba de aakhiradeena balaaneegna waxa alla ka dhigtay lagu kala tagay وصلتوا استراحة فيلم كان بكم مجرته وحلا قبطوا وحروا بنادم السبعية مجره وها هي آفات الثلاثة في الطريق طريقة مبادئ دي يديمها سدح لآفوده كل عواقوها كان إنه قفكوا دقدقه وحن لو فردين ولا يماده إيوه إنه محي إنه تنازله أو الثبات اللي من وايو سجنان وايو إيوه إنه قوسته oo qunuud iyo yaasi ku dhaco amalkiisa islaamiga iyo diintiisa wixii wadayba oo faraaka qaado wiilkan yari hooyadii wuxuu ku leeyahay ilaahay ka dhawaajiyay dharabta lagu sida hooyoy isbiri fa innaki ala alhaq sabir haq baad ku sugantahay alla subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu ku tilmaamaya oo in badan quraanku inooga waramaya anbiya la ciqaabay oo la cadaabay oo dib loo geystay oo nafta la isugu keenay أنبياء الله يبو قرآن كشيء والنبي مع ذلك ولا الله كوال الجبيبة قرآن كتلمامية وحاصرنا نسقوا إلى هاي شيء يا الله سبحانه وتعالى هدنا النبي جوحه كله صبر بل يسقوا الصبر أو حيودي بكل عيان بإلهي وحليه ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق الله سبحانه وتعالى مركي للربي النبي إن لا يدعى الصبر مركي هو مسألة كلا الله شرحي ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا واحد حصوصة تابع إلهي ردتك وشيكتا مركا كوا قالوا بي إلهي سبحانه وتعالى النار تنتو دولك أنا ورندونا ورتاني حق مطي وينك يدفيري تشري آخره ما جرتو ناري ما جرتو عدالة وحا وينك لهاي أليس هذا بالحق رب ما تهي إلهي وحلي ما لنت مرن مجري أنت والله كحاجة في سيام بيردنا قالوا بلى وربنا أذان كقول دارنا الله والنار توارب إلهي وحلي مركزنا نوحنا ردنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون عذاب كالدمية وحاو قالوا بيدين دريديد بسبب كفركم دمية عذاب محل لي عذاب كالدمية إلهي وحط المامية أصلاً مال وحكو أرجوستين ليه مال وضدك كو حسابي أين يشرتو دنيا تنين يتهي دار ضدك الله يتحامى يلا اسكو يتحامى قفك مؤمن كايك قال كلا اسكو يتحامى لكن وحلا قرب ويا تصبرون وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون ما صبر يسمى الله سبحانه وتعالى markii laga waramay aakhira iyo gaalo waxa lagu sameeyay aayada ku xigta ilaahay markaa wuxuu yiri fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wala tasta'jil lahum aayadii hore markii ilaahay naarta ka waramay iyo dagaalada saa loogu soo bandhigi doonaba ilaahay wuxuu hadana nabiga ku leeyay fasbir kama sabara ulul azm sabir ba Allah yiri subhanahu wa ta'ala oo waxaad u sabirtaa sidii ulul azmi min ar-rusul ay u sabreen ulul azmi min ar-rusul quraanku wuxuu kaga waramay nabi nuux oo dhigtaba laga furaystay oo la maqli waayay oo haddana 950 sanadood dacwo wada oo ilaahay leeyahay wama aamana ma'ahu illa qaliil haddana aan joojin bal aba ilaahay ka waramay nabi nuux وبكل الأساليب استعماله
إني دعوت قومي ليلا ونهارا isagoo siran wajahran wacalaaniyatan laylan wanahaaran marka xagga zamanka laga eego layl iyo nahaarba waan waday buu leeyahy marka xagga usluubka iyo weyga iyo dariiqada wax loo sheega laga eego siran wajahran wacalan baan u waday buu leeyahy qofka bini aadamkii wuxuu u adeegsan lahaa hadday time factorka tahayna habeen iyo maalinba shaqadaa waan waday buu leeyahy hadday tahay asaaliibta iyo dadka saa loola hadliya saa wax loogu yeedhana kor iyo hoos iyo nooc kastoo bashar wax loogu sheego waan waday baa ilaahay leeyahy dabeetana ilaahay nebi maxamed wuxuu ku leeyahy fasbir kamaa sabra ululcasmi min arusul ay icmal shaqee baa la leeyahy say iyaba u shaqeeyeen sabir abulambiyaa baa ka mid ah oo intaasoo meelood ka hijrooday ciraaq ka tego falastiin ka tego maka tego meel walba dacwo waday xad la soo gaadhsiiyey in dab lagu rido inta la soo qabto dab loo shido loo xidhxidho in dab lagu rido waxaa ka mid ah nebiyullaahi muusa oo ogtayn isaga iyo qoomkiisii wixii kala qabsaday nebi muuse oo aan askar la siin oo ciidan la siin oo lacag la siin haddana ninkii dunida ugu kibir badnaa baa la yidhi qaba adigu iyo isaga u tago wuxuu soo sheeg ilaa waa ka cabsanayaa buu waa soo cabsaday waa bashar waxaa la yidhi bal horta gacanta waxaad ku sidaa waa maxay wamaa tilka biyamiinika yaa muusa bal iska hubi baa la yidhi gacanta kanaad ku haysataa waa maxay ilaah waa u shaydii buu yidhi waa maxaad ku qabsataa wuxuu yidhi xoolahan ku raacdaa waliya maarib kalena waanu leeya dana kale markii la hubiyey waxaanu hayay wuxuu ahaa ayaa ilaahay yidhi iska sii daa haddaba dhulka ku tufo dhulka markay ku dhacday faidaa hiya xayatun tascaa baa ilaahay yidhi dabeetana waxaa la yidhi khudha walaa takhaf hadday abeesada soo ordaysa daanka qaba baa ilaahay yidhi oo hana cabsoonni ul inay ahayd markii hore waa waxa la yidhi hubi wuu arkay tuur baa la yidhi waa iska tuuray markuu tuurayna ilaahay wuxuu yidhi qabo oo walaa takhaf ha cabsan maxaa la rabay nebi muuse in cabsida basharkaba laga saariyo makhluuqaad inuu ka cabsado waayo xaggee loo dirayaa nin le ana rabbukum ulacla maa calimtu lakum min ilaahin hayri nin sidaale baa ilaahay u dirayaa muxuu haystaa muuse cid igu dar buu yidhi walaalkaana kaxaysaa la yidhi waa laba nin waan ciidan wadan xoola wadan askar wadan waxba haysanin ninka loo tegayaana waa nin kibray oo qooqay oo caynkana ilaahay wuxuu ku yidhi subxaana wa tacaala zaad maxaa looga dhigay walaa taniya fii dikrii baa ilahay yidhi aniga xuskayguun ha ka daalina wax kale uma baahnid anigaa kownkan iska lehe aniga xuskayguun ha ka daalina walidalik buu ilaahay xuskiisa kamuu daalina markay ku adkaatay wuxuu lahaa kalaa ina macya rabbii sayahdiin ilaahay baa aniga macayga way xanuuninaya ilaahay subxaana wa tacaala nebi maxamed wuxuu ku leeyahy fasbir kamaa sabra ululcasmi min arusul siday ululcasmiga rusushu u sabreen ugu sabir walaa tastacjil lahum baa ilaahay yidhi qoladan waxba cadaabkooda ha degdegsanin baa ilahay yidhi cadaabka goortaan keenaya iyo goortaan aargoosanay waxaa waa shaqadayda baa ilahay leeyahy waxba adigu ha ku degdegin walaa tastacjil lahum adiga waxaa laga yaabaa inaad adigu islaaday mu'minkii xaggaa lagu rifo xaggaa laguma kuwan dhulka lala gooyo ilaahay taa anigay shaqadayda tahay baa ilahay leeyahy walaa tastacjil lahum ha ku degdegina baa la yidhi subxaana wa tacaala laakiin ilaahay muxuu leeyahy walaa tastacjil lahum kaannahum yowma yarawna maa yuucaduuna lam yalbathuu ilaa saacata min nahaar maalinta ay arki doonaan baa ilaahay yidhi wixii aan u yaboohay dunida tan tirada badnaydba waxay la noqon doontaaba inaanay saacad maalin ka mida inaanay soo joogin waxba hala degdegina baa ilahay yidhi maalinta ay noqoto inaan wax ciqaabo waxay noqonaysaa baa ilaahay leeyay lam yalbathuu ilaa saacata min nahaar dabeetana ilaahay wuxuu leeyay balaaq fahal yuhlaku ila alqawmu alfaasiquun ay hada balaaq balaagun linnaas waa gaadhsiin baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala taas waxaa alle subxaana wa tacaala ina baraya marka kan sabirka qofka muslimkaa waxa hortiisa taagani inuu yahay inuu sabro imtixaanka inuu ku sabro oo u sabro laakiin sabirka macnihiisu muxuu yahay kow inaanad degdegin midhaanaad goosan karayn inaad ku degdegin isticjaal inaanad samaynin khuliqa alinsaanu min cajal insaanku marka hore wa kaana alinsaanu cajuula aburahaan buu mid degdegta jecel yahay bal tuxibuuna alcaajila
إلهي وحط الماما يا إنسانكو إنه دقدقت سيدي سبس كتشعلي واحد دقدقت أنا وتشعلي لكن إلهي وحلي سبحانه وتعالى دقدقتي نال لما دقدقه إلهي الرميس مقادير بيكو صعدان ولذلك أدوه الدقدق بالا لي سيدا وقيد النبي صلوات الله وسلامه عليه حديثي صحيح كويا للبخاري وصاصاري خباب بن الأرت وصحابي قبيل كيرير بنو تميمة نيكا كان واددكي إلا قبصدي يدبتنا الله أدون صدي لأن عربيد ورير بنو تميمة بوها لكن قعن علاده انت لقبتي إلا أدون صدي إسلام لورين شري أمو أنمار أي أخيرا لقي يبيي إسلام تنفر سمدة تمالمدة الله يراه دبي برتي دبتنا ويكو حيوكستي marka meel baa loo furay dukaan Soomaaliyeed oo farsamo yaqaana fortune kaasi haystay markaas iyo wixii ka soo galana qolada nudbaa day qaadan jirtay wuxuu ka mid ahaa muslimiintii hore ee islaamtay ee dhibta badan qabsatay wuxuu leeyahay maalintii dambe nabiga uu nimi salawaatullaahi wa salaamu alayhi isagoo burde uu leeyahay isagoo mutawassit ku ah oo kacbada hadhkeeda joogaan uu yimi waxaan ku nidhi buu yidhi alaa tastansir lana alaa tadcu lana ilaahay rasuulkiisiyo maad ilaahay dahdaba noo baridid maad ilaahay guul noo weydiisid baan ku nidhi buu yidhi wuxuu ku yidhi nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayh qad kaana man qablakum yu'khad war kuwii idinka horreeyey buu nabigu yidhi qaar ka mid a ninka inta la soo qabto ayaa god loo qodi jiray dabeetana inta godka lagu rido oo lagu aaso xaggiisa hoose si aan u dhaqdhaqaaqin ayaa miishaar madaxa laga saari jiray dabeetana miishaarta inta lagu toorjar gareeyo ayaa laba loo kala jari jiray buu nabigu ku yidhi waxaa la soo qaadi jiray buu nabigu leeyahay amshaat min xadiid gafeedho bir ah dabeetana lafta iyo diirka ayaa lagu saari jiray toorjarku maaha wax hadda bilaabmay taariikhda bashariyadu mar kastoo ay kibirto noocan way lahayd nabigu wuxuu ka warramayaa markaa dad la toorjar garaynayo oo lagu toorjar garaynayo diintiina ka taga oo dabeetana diidan inay ka tagaan ayuu saxaabigan uga sheekaynaya wuxuu nabigu ku yidhi markaa maa yasuddu dhalika can diini waxaasoo toorjar lagu hayo ee gafeedhaha birtee lagu rifayo miishaartaa lagu kala jeexayo waxaa mashaakil haystaa buu nabigu yidhi may ahayn ku diintiisa ka celinaya dabeetana nabigu intuu dhaartay buu wuxuu yidhi wallaahi layutimana allahu tacaala hada alamr حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت فلا يخاف إلا الله والذئب على غنمي ولكنكم تستعجلون نبغى حكول إلهي بان كل دارته الله سبحانه وتعالى الدين تتمور لما يستري دونا إلى إيوه يعني نبغى بشارين يا صحابي كان هذا دي بقول نقطنا واختيادو نبغى بشارين ترى أنت وقول بدن له وحي هانجري واختياد الصعب كا أحزاب وكله markii dhaxantu ay jirtay ee gaaladii oo dhamayso soo urursatay ee godkii yaray la qoday dhagax loo taag waayo nabigu ku dhacay ayuu la mafaatiixdii shaam iyo mafaatiixdii fursi kuwaas leeysiin waqtiyadu nabigu uu bushaarayn jiray markii godka uu ku jiray isaga iyo Abubakar godka ay ku jireen ee la eriyay la firdhiyay ee la raadinayay ee Abubakar ilaahay gumadooda eega wayna arkayaan ayuu nabigu wuxuu lahaa maxaad u maraynaysaa laba ilaahay saddex ku yahay waqtiyadu nabigu salawaatullaahi wa salaamu alayhi dadka ducaada ay dadka diinta garanaya waxa loo baahan yahay dadka qalbigooda dajiyaan oo u sheegaan wixii bashaa'ir nabiga ka soo aroortay ee quraanka ka soo arooray waqtiyada dadku mixanka ku jiraan idan iyadoo mixnadu dhacayso ayuu nabigu saxaabiga ka laba shay buu wada tilmaamay dhan wuxuu uga tilmaamay waxa loo baahan yahay inuu yahay qofka mu'minka taadiibku inaanu diintiisa ka celinin dhan kale wuxuu uga tilmaamay nabigu salawaatullaahi wa salaamu alayhi diintan inuu ilaahay dhamaystiri doono mar saddexaad buu hadana nabigu wuxuu tilmaamay saxaabiga kan walaakinakum tastacjiluun waxa tihiin buu nabigu leeyahay kuwa degdegaya ee degdeg iska daaya degdegu waxba ma kordhiyo waxba ma taro wuxuu taraa degdegu wixii aad haysatay inuu ka kala daadiyo waxaan la gaadhin haddaad raadacayso هذا كحيقيا ساوجد بالنبي صلوات الله وسلامه عليه وصحابي كانوا تلماميا استعجال كسكرب أو صبر ولذلك بالنبي والصحابة دي عين كان كلها يدو تورجر كان يدبتني هيسته يعني الصحابة دا قار كود مركي يدبتو كتر ربضت كلمة الكفر جواز كجدا واقع ويا إلهي بهو وقلاضي سيد عمار بن ياسري
waana kii nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh tilmaamaya abshiruu ala yaasira faina mawcidakum aljanna yacni sabran ala yaasir waxay yidhahdaan ma asaxin ama abshiruu ala yaasir faina mawcidakum aljanna bacd alculamaa baa wax ka ururiyo la yidhaahdaa mustafa alcadawi sheekh mustafa alcadawi iyo rag lamidi waxay leeyihiin alxasan ligayrihi waa gaari karaa haddii sanadadiisa la ururiyo yacni waxay ahaayeen wakhtigu nebigu uu bushaaraynayay wakhti la dhibayay bale bilaal haddaa iminka aragteen suwar qof muslim oo intay gabadhi sida eyga bahal xadhig yar sudhatay ay jiidaysa haddaad aragtay bilaal oo nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi kuwa uu jeclaayay ugu hor rumeeyey caynkaasi ahaa ayaa inta la tumo marka tumista laga badiyo carruurtaa hoggaan loogu xidhi jiro o la odhan jiray mari suuqa soo mari xadiiska sanadkiisa oo xasan intaa hoggaan loo sudho ayaa la odhan jiray meelaha kacbada iyo agagaarkeeda soo marmariya si loo gubo markaas waxaan leenahay waxaynu u baahan nahay inaynu sabirno nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh yacni waa soo koobaya markii ay dhacday sulxu xudaybiya heshiiskii ay muslimiintu la gelayeen gaalada iyadoo heshiiskii la qorayo waan weli la dhammaynin oo nimanka gaaleed ay is adadkaynayaan oo ninkii gaalada markaa u hadlayay uu leeyahay masax waxaanaad qortay bismi illaahi araxmaan araxiim qor buu nebigu yidhi wuxuu yidhi u kaadi raxmaanuraxiimkanaad sheegaysa annagu garan mayne bismika allaahuma noogu qor magaca allaan ku bilaabanuun ku qor laakiin raxmaanuraxiimkaas waxaynu isku waafaqsannahay maaha kada waa brotocoolkii wax loo qorayaa la isku hayaa ka daaya buu nebigu yidhi u qoro kooda waxaad qortaa buu yidhi maxamed oo ilaahay rasuulkiisiiye sug buu yidhi rasuulnimo haddaan kuu garanayno ismaynan dilleenay magacaaga iyo kii aabbahaa qoro buu yidhi maxamed ibnu cabdillaahi ku qoro haadaa maa saalaxa calayhi moxamed ibnu cabdillaahi saa ku qoro kama saxoo ku qoro buu yidhi oo cali baa xanaaqo yidhi wallahi inaanan masaxaynin ee tus buu nebigu yidhi oo isagaa masaxay heshiiskii iyadoo la yeedhinayo heshiiska la yeedhinayo markaa waxaa ka mid ah wixii ka soo gala gaalada ee muslimiin ee soo cararee muslimka u yimaada in dib loo soo celiyo lagu celiyo gaaladii raadcaynaysay wixii laakiin muslim ee soo baxsaday xagga gaalada yimaada soo ridooba inaan la soo celin bunuudda ka mid ahayd la qorayay iyadoo bunuuddaa la wado aan weli la qorin ayaa waxaa soo galay saxaabi raran oo xabsi ka soo baxay oo silsilada ku xidhan yiin oo ismaqlay muslimiintii baa maka u soo dhowaatay oo isla mar uun haddaad meesha ka baxdo abujandal baa soo galay abujandal waa axad asaxaaba maka ku xidhnaa oo silsiladiisii watoo soo baxsaday aabihiina waa ka nebiga heshiiska la gelaya suhayl ibnu camar saxaabigii la odhan jiray oo markaa gaala waa ninkan heshiiskaba qoraya ee nebiga heshiiska la gelaya dabeetana wuxuu yidhi maxamedow kanbaa ugu horreeya heshiis waxaa kugula gelaya waar weli maynan qorin buu nebigu yidhi heshiiskii wallaahi haddaanad aqbalin buu yidhi inaan weligaba heshiis kula gelin markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi ii sii daa markaasuu yidhi kuu sii dayn maayo balaa buu nebigu ku celay mee waad ii sii daynaysaa kan anjisuu leey ii sii daa kuu sii dayn maayuu istaagay makras mid la yidhahdo kaloo gaalada ka tirsano meesha taagnaa ay yidhi war waa kuu sii daynay suhayl waa xanaaqay uma sii daynayna buu yidhi waa u diiday markuu arkay in layshaystaa buu saxaabigiina qayliyey wuxuu leeyahay yaa muslimiin maanigoo gaalo ka imi oo intaas soo cararayay oo silsiladahan soo jabsaday kuwan tahay ayaa igu celinaysaan haddana gaaladii war ma waxaad rabtaan in diintayda layga fidmeeyaabuu isna halka la taagan yahay saxaabadii waaba miyar doorsoomeen waa maalintuu cumar xanaaqii intuu wareeray uu lahaa intuu nebiga u yimi buu ku yidhi ilaahay rasuulkiisii miyaan anagu mu'miniin ahay miyaanad adigu ilaahay rasuulkiisii ahayn buu ku yidhi markaasuu nebigu yidhi maya waa ahay annagu miyaanan mu'miniintii ahayn maya waa tii kuwani miyaanay gaaladii ahayn maya waayi su-aalo aan la filayn inuu cumar nabi maxamed hadda weydiiyuu weydiiyey kadibna wuxuu yihi falima nucta daniyata fii diinina dullinimada tan maxaynu u aqbalaynaa nebigu wuxuu ku yidhi sabir cumar waaba joogi kari waayo waa dhaqaaqay abibakar buu haddana u tegay intii in leeg buu weydiinaya miyaanu nebi maxamed ilaahay rasuulkiisi ahay maa caynka ahay ilzam hirza buu ku yidhi abibakarna laazim nebi maxamed warkiisa isagunbaa lagu liibaanayaay caradii buu ishayn kari waayo oo wiilkii halka ka qaylinaya silsilada ku xidhnayd buu isa soo dul taagay isagoo leh gaaladu waa kilaab aan naf lahayn seeftana kusoo dhawaynayo isla wiilkana intuu safta la boodo madaxa ka jaro odayga kan laakiin wiilku aabihiina waa la yaro laxa jeclaaba inuu madaxa ka gooyo waa aabihii da ninkan meesha taagan cumar way ka xumaatay marka
arrinkii wuu ka xumaaday wiilkiina sidan buu leeyahy salaadii baa la qiimayaa halkaa ku joojina salaamu calaykum